السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرا سوغايا حدي سوغلان ولا لها سيدا 10 كاني صبحي 7 AM وحسود داهم لنا 3 minutes. So let me see قفينو سوغلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, وصوب بدنا يسين 4 لح okay. ومع سنتين هدائي مقشان ساو هادلو وأن أسيو 10 أسيو وضو أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محا صبرية أم محمد أدبا أمات سنتين فردوسة عبد كرد وعليكم السلام أبادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد كافي وعليكم السلام فرحية وعليكم السلام سيستا عبد قادر أدينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا دمان هرتوا إني سلامي سلامت قيمها بدن وقايها بدن ودتك ولا لها إسلامك اسكو سلامان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين صفية فارح محمد دتك هوري ولا سعنين 10 وأوجا هاي بلاتفورم كان فيسبوك واي إن دد عصب كجران marka waxaan rabaa summary weyn u fiican tahay dadka cusub soo gala si uu ogaadaan maxaa ka socdo maxay taa qofkan iska hadlayo mise wixii yani xaalad lama socdo oo arinta guud ahaan marka ila yaabina hadii summary quick aan sameeyo summarygaasna adigana uu ku fiican yahay xasuustaadi ma aragtay dib u soo celinaysa waxyaalii ah hore u soo baratay iyo wixii aan hore uga hadlay marka hadii codkayga si fiican uu yahay waan filayaa in si fiican ay maqleysaan ma sha Allah. waxaa ka soo hadlayna barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa 21 beri sidii nafsada lagu kubcin lahaa ama shakhsi ama in aad rabtid relationship family inaad kor u qaadid ama inaad tahay qof business leh oo ama qof rabo inuu wax barto oo yool leh ama goal oo rabo inuu adduunka meel ka gaaro iyo qof rabo inuu aakhiradiisana meel ka gaaro oo diinta islaamka ma aragtay knowledge-keeda uu barto. marka waxaa ka soo hadlaynay qaabkii maskaxdaada ah program ugu sameyn lahayd sababtoo maskaxdeena waxaa ogaanay laba qayb inay tahay in yani maskax ahaan kama wado mindkeena inuu yahay laba qayb oo dhanka midna ay garashadeena leedahay midna subconscious ka tahay oo wixii xun iyo wax wanaagsan wixii oo story ah waxoo dhan ay store gareyso wixii dadka nagu hareeraysan nagu dhahaan yaraanteena wixii nagu dhahay hadee wax xun ahayd hadee wax fiican ahayd hadii magac ay tahay oo xasuus ah hadii ay tahay yani waxyaalo aad tir waxoo dhan midda aruuris inay subconscious ka tahay eena tahay mid ugu muhiimsan subconscious ka midda markii wax barashada aad baranaysid hadii aad hor rabtid u socotid midda dib ku dhigi karta hadii negative kaaga u batana waxaan ka soo hadlay in loop noqonayso oo waxyaalihii maalinkii ku soo maro dhan ay ku noqonayso. haddana barnaamij kale ka hadlay oo ahayd in adiga aad powerkeeda leedahay oo adiga gacanta aad ku haysid ee adiga maskaxdaada ku controlling oo yani gacantaada ay ku jirto qaabka u leexistay u leexsan karto aad training ku sameyn kartid aad maxaa ragtaa waxyaalo wanaagsan ku waxeen kartid waxyaalahaasna waxaan kaga soo hadlay waa xasuuska waran okay waxa dhow ka hadli doona xarab 10 inaan ku sii socdo raali ho Cabdinaasir waxaa ka mid ahaa waxyaalaha lagu nafsada kor loogu qaado waxaa ka soo hadlay gratitude kaasna waxa ina Ilaahay ugu mahadinaysid waxa haysatid marka adduunka waa aragtay hor looma socon karo in wixii aad haysatid marka ku mahadisid taasna marka diinteenana way noo sheegtay scientificna ayagana way ogaadeen gadaalay ka ogaadeen maadaama diinteena number 1 ay tahay ayada markii hore noo soo oo 410 sano ka hor ay noo sheegtay in muhiim tahay in markasto aad Ilaahay ku xamdisid waxa haysatid kadibna wax walba way ku fududaanayaan waa helaysaa adduunka aakhiraba. waxaa ka soo hadlay affirmation shalay toole affirmation kaasna wuxuu ku saabsanaa in wixii xumaa oo nafsadaada ay iska dhahaysay aa wax wanaagsan u bedeshid si maskaxdaada oo ku wacdo ee uga baxdo xumaanta ee uga baxdo wixii negative ka ah ku soo laalaabanayay taasna aad muhiim u tahay walaalayaal waa idin ku soo celinaya mar labaad hadalkayga si fiican u maqla ku dhaqma dhaqan galiya waana arki doontiin ma ahan ina afka ka dhaxdid list dhana soo qoray asoo English ah waxaana jeclaa page kan ku soo qoraa waa gelina qofkii walaal ah oo asna anaga ku day in af Soomaali ku soo fasiro qofkii walaal oo dadaalayo oo asagana rabo inuu ajir ka qaato in uu asagana wax ku soo biiriyo
waxyaalahaas marka waa inaad subax kasta aad tiraahdid, subax kasta oo nafsadaada aad soo kacdid. sababta waxaa rabtaa inaad dadaashid in gurigaaga iyo familkaaga aad hagaajisid, waxaa rabtaa in aad waxbarashadaada meel ka gaartid, waxaa rabtaa in businesska aad haysatid oo intaasoo mar aa ku dhacday, reasonka ugu dhacdana aadan garanaynin in aad dib ugu laabatid. marka maanta topigeena dadka aan hore ula soconina maxaa la dhahaa for my Somali community waxaa soo dhigay xitaa YouTube page-ka in maalinkii inta awoodo oo aan soo geliyo wixii dhaafay oo dadkii aan Facebook aan ka gaarin oo aan soo geli karin ay kasoo galaan YouTube-ka. marka maanta topigeena wuxuu ku saabsan yahay topic aad interesting u leh oo adinkoo dhan aad ka heli doontaan waa ogahay. topigaasna waxaa waaye self worth, shaqsigaaga qiimeyntiisa. title-kana waa kusoo qoray shaqsiga nafsadaada inaad qiimeysid. maxay tahay nafsadaada inaad qiimeysid muhiimadeeda? maxaase yacni kuu kordhaya haddii nafsadaada aad qiimeysid oo number 1 ka dhigtid? marka saa soo sheegay labada dhinacba waa ka hadli doonaa, sida diinteena suuban ee noo sheegtay iyo siday u arkeen dadkii dhaqan geliyey wixii ay ku arkeen. marka shaqsigaas marka qiimeynteeda waxaa kasoo doortay hal wax. intaan horta aan shaqsiga qiimeynteeda aan sii fasirin kasii hadlin, halka waxna waxay tahay self love, in nafsadaada aad jeclaatid. qofka shaqsiga haduusan nafsadiisa jeclaana adduunka wax uu jeclaan karo ma leh, walaa darisuu jeclaan karin walaa qof u dhow. waana ogtiin xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Abu Dharr uu ku dhahay xitaa Abu Dharr waan ku jeclahay sida nafsadeeda aan u jeclahay number 1. xadiiska kalena adinkan waa iga wada taqaaniin dhammaan dadka ku jira sharafta leh in research aan sameeyay saasaan ugu soo diyaariyay in xadiiska kalena uu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga wariyay oo Sahih al-Bukhari ku jiro oo dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam axadkiin qof yani ma ahan oo i aaminay ama diinta aaminsan ilaa uu jeclaado wuxuu nafsadiisa la jeclaa walaalkiis oo la jeclaado. marka lama dhihin walaalkiis number 1 inuu jeclaado, waxaa lagu dhaw wax asaga shaqsigiisa uu jecel yahay nafsadiisa oo nafsadiisa number 1 ee tahay ka bacdi uu la jeclaado qofkii kale walaalka ah. marka maxay naga reeb self love kaas xaguu ka imaadaa? marka walaalayaal jaceylka nafsadaada aad jeclaanaysid ama shaqsigaada kuma saabsana wixii banaanka ah ku aragtay ama baawur cusub ama guri cusub ama inaad tiraahdid qurux banaanka ah ama farxad banaanka kama imaanin. waxay ka timaada gudaha qofka ibn aadanka gudihiisa. gudahaas marka sidee yacni aad haddii aad tahay qof oo mar kastaba nafsadiisa complain ku sameeyo, mar kastaba oo asaga isyaso, mar kastaba isu arkay inuu qof qaldan yahay, mar kastaba isu arkay inuu qof xun yahay, wixii uu sameeyay uu dhaho waxaan aniga qof fiican ma ihi, sidoo nafsadiisa ku jeclaan karaa? qofkaas maxay soo dhibaysaa dhibaatada u gaarsiin karto? dhibaatooyinka ay gaarsiin karto waxaa waaye noloshaada hor uma soconaysid. waxaa laga yaabaa in aad u dadaalaysid mar kastaba laakiin nafsadaadi hore uma soconayso. ato su'aasha walaal waa ka jawaabi doonaa, mid kalena waa idin sheegi doonaa. berri oo kale 10 ma ahan, waxaan idin ku soo gali doonaa wixii su'aal ah, just su'aal iyo jawaab kaliya noo ahaan doontaa berri hadduu ilaahay idmo. marka iga raali noqda 10 ka sii wato. waa mahadsan tahay adinka mudan. marka sidee nafsadaada shaqsigeeda aad jaceylkeeda ugu muujin kartaa? waxyaalo badan inaad ka ilaalisid waay. marka waxyaalaha ka ilaalinaysa waxay tahay mar kasta oo qof uu ku dhaho ama waad qurux badan tahay ama uu ku dhaho walaal waxaan wax wanaagsanaa samaysay, ha oranin, ha hadalka ku soo celin, ha dhihin oh aniga nafsadaada ha yasin. nafsadaada yes hadalka saxsantaasa ku ah, naftaada ha yasin, naftaada dib u fiiri. waxaad tiraahdaa waad mahadsan tahay qofkaas ku dheh, waad mahadsantahay ku dhayso qofkaas. waxay kor u qaadaysaa shaqsigaaga nafsadaada gudaha ahayd ee respect siinaysaa, si yacni nafsadaada aad dib u fiirisid because nafsadaada xaqay kugu leedahay. diinteena ku jirta xaq nafsadaada ka bacdi dadka kale kugu hareersan xaq bay kugu leeyihiin. marka nafsadaada inaad dib u fiirisid waa number 1 xaq. in maaragtay haddii aad dareentid inaad tahay qof mar kastaba nafsadiisa criticism ku sameeyo, dhanka kale inaad u bedeshid oo aad raadisid waxyaalo wanaagsan aad hore u soo samaysay. waa ogaa adduunkan in wax wanaagsan uu soo maray iyo wax xun.
midda xun intaanan taaban midda wanaagsan ina waxaa la rabaa inaad buugi qalin soo qaadatid inta mar oo wax wanaagsan aad samaysay nafsadaada inaad tiraahdid weldan oo aad meel ku qoratid oo xasuustaada aad soo waxaysid maxay u fiicantahay inaad saa samaysid waxay u fiicantahay subconsciouskaagii haddana ee dib u celinaysaa maadaama subconsciouskaaga xumaanta iyo wanaagii aysan kala garanaynin wanaagaas hadduu ka hormaro wanaagaasaa joogaayo markasta nafsadaada waxay ka aaminsanaanaysaa inaad qof fiican tahay dadkana way kaa arkayaan hareerahaaga joogo qof kasta oo wax kugu darsado uu ka dareemaya marka taas ina ku qancisid taasna waa self acceptance midda kale in aad isku hareeraysid dad supportive ah dad wanaagsan dad wanaagaaga arko taasna markasta waa kusoo celceliyaa nolosha kiigeeda number 1 waxaa ah in dad wanaagsan aad isku hareeraysid dadkaas wanaagsanna kaliya kuma taraysa adduunkaaga waxay u taraysaa gudahaada shaqsi ahaantaada ma kugu ridayso low self esteem dad wax fahmaayo oo diinta fahmaayo oo garanaya yani waxay tahay shaqsiyadda inaad markasta kula xiriirtid marka waxaan rabaa mid kale inaad taabto waa ogahay dadkeena badanaa hadda ku wada jiro in ama dad inta ku dhashay ay ku jiraan ama dad wadankii kusoo weynaaday ama dad ayagoo yar kasoo baxay anigoo kale nafsadeeda haddaan kasoo qaado yes anoo waqti yaraan kasoo baxay laakiin kulligeen waxaana wada taabtay xanuunka wuxuu yahay dagaal dhibaato qax waxaana taabtay markastaba dadkii yani wadankii inuusa fiicneen meel kastoo aan tagna inaan la qabsanin waxaas strugglekaas aan marno dhan nafsadeena waxay u dhibtaa dhibaato shaqsi ahaanteena marka shaqsi ahaanteena nooca uga gudbi lahayd raali iga noqda waxa uga gudbi lahayd waxay tahay in nafsadaada again aad kusoo laabatid aad tiraahdid nafsadeydiyay wixii dhacay ilaahay yani wixii dhacay wax qorana ahayd ilaahayna subxaanahu watacaala waa tuu ku dhahayo suuratu inuu ku dhahayo ilaahay uu ku dhahayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وسحكرتين هدان قلدي إلهي إنه دها سبحانه وتعالى نفس الدين يعني هكا قوسننا محالة دها رجدا هكا قوسننا مركا نفس الدين إنا أشيكتد واي إنا الرجي إسجلسيد إنا إسدير إسجلسيد إن نفس الدين شخصي قاعد جعلاتد سأهر ومرتد وحاسو لنا وحي كوغو في عينهن وحي نلوشي كوغو ما أتكانيسو ما أنتوا أوغا هاي إن نغو أذكتا إنتانا بدن إن aan ka hadalno dhibaatadii dhibka nagu soo dhacay taasna ma ahan in oo bright isla yeelatid istiraahid oo isla weyne ay ku gasho ama isla weynadaas xataa darti laftigeeda aad dib ku dhigayso waa in nafsadaada aad daacad u noqotid aad dib u fiirisid oo kaliya scientist isku noqotid aad tirahdid look xagee waxaan dhibkan iga imaanaya okay haddii aad dareentid in uu kugu jiro cuqdad ama cuqdad kaliya ma ahanay xanuunkii ku gaaray because aniga xataa nafsadeedan kasoo qaaday yes markaa arko markaa waqtiga college-ka aadi jiraa dhigin jiray dad waxaa la dhigin jiray different country ka imaaday markay ii arkaan ina aniga qof kusoo koray ilaa wadankan kuma korin waxaa ka imaaday Africa ka imaaday Soomaaliya Kenya ka imaaday kusoo koray markay Soomaaliya markay arkaan yani aan arko qaabkay u dhaqmayaan waxa ay gali jirta xanuuna dareemi jir gudaha xanuunkaas wuxuu ahaa haddaan heli lahaa wadan fiican aan ka imaaday haddii wadan magac leh aan ka imaaday TV-ga markii la daaro kale waa ka xanaaqi jiro waxaa dhihi jiray wax Soomaaliya waxba kama sheegaa wax xun ka soo saaraan xanuunkii marka resentment xanuunkaas nagu jiro waxyaalo badan oo naga baabi'iyaa wuxuu naga buriyaa guryaha qofka dabeecadiisa bedeshaa laakiin haddii aad tiraahdid is okay yes waa soo maray dhibaatadan xanuunkan waa soo maray wax ilaahay uu qoro ahaa laakiin ina nafsadaada aad dib ugu noqoto aad tiraahdid yes waa aqbalay dhibkii waa aqbalay dhibaatada soo maray laakiin hore ina u socdaa rabaa intaas kaliya ay isdhehaysid waxaa kuu furmaa irida badan waxaa kuu furmaa waxyaalaha hadda kaa xiran oo waxbarashada kaa xiran waxyaalaha businesskaaga hore u wadin waxyaalaha guryaha jebinaya maanta dadka markay 2 kalmad ama 3 kalmad isdhahaan oo go'aankooda uu noqonayo daasid ayagina ma ahan wixii gudihi ku jiro waa dhibkii ay soo mareen iyo dhibaatadii laakiin haddii la isla fahmo ka waran dhibkii dhibaatadii aad soo martay aad fahantid intuu si qof kale ku fahmin marka self-worth kan aan ka hadlayo mainly adigu ka imaada shaqsi ahaan marka today taska ku siina waxay tahay
nafsadaada dib u fiiri nafsadaada jecel u muuji nafsadaada marmar xitaa dadku waxay dhahaan marry yourself adiga isguurso why loo dhaha adiga isguurso because waxa accept garaynaysaa wixii kugu dhaco dhan ka bacdi wixii wanaagiga kugu muuqanayo waxa arkaysaa dadka dariskaaga wanaagooda waxa arkaysaa qofka guriga kula nool wanaagiisa arkaysaa haddii taada accept garanina ma accept garanaysa dadka qaar waxa laga yaabaa in nafsadooda inay dib u dhigaan iska badaaba xataa in dadka hortiisa markay joogaan ay nafsadooda wax yar isku dayaan inay kor u qaadi karin ee dadka kale lambar 1 ka dhigaan ee dhahan ha hebel ay la socdo hebel siduu yahay an markastoo asaas aad tiraahdin aad samaysid nafsadaada dib u dilaysaa nafsadaada ku ciyaaraysaa marka walaalayaal aada u mahadsantihiin insha Allah biidnillaahi kariim berri toole cashar ma jiro su'aal iyo jawaab uu noo noqon doona casharkeena laakiin hadda intaanan ka bixin wixii su'aal hadaa qabtiin waa ka jawaabi karaa hadduu ilaahay inna waana mahadsantiin yani waqtiga ay siiseen ku dhageysateen waa sugayaa wax yar haddii oo wax su'aal oo quick ay jirta ka jawaabi karo horta fadhiis may fadhiga ma jecla cabdifataax waa mahadsan tahay subax waaye subaxii inuu wadnahaaga shaqeeyo waaye oo exercise-ki ka mid tahay jirka noloshaada caafimaadkeeda ka mid tahay istaaga jeclahay aadan u mahadsan tahay firdowsa cabdi wa iyaaki sister wa iyaaki okay ato su-aashaada soo qor cabdifataax yes hooyo ahay marwa ahay waa la iqabaa caruurna waa leeyahay aad ba u mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay إلياس أذا مدن وحنكو سؤالة أوكي سوقر إن شاء الله مسكحة أوكي علي عبد الله مسكحة سيدا أكردنيسا أوكي مسكحة وحا أسو كردنيسا وحيالي هدا أسو شيء دقنقلي وحيالي عجلدي ماركتي فيديو هور أنكو مشن قري دقن كيدا قلي دقن كيدا مركا قليسيد إتيمان تاكالا هادلي ودب آذن يعني أفيرسيد maskaxdaada kore u kubcaysaa sababta waqtiga qaadanaysaa in aad maskaxdaada ay kor u kacdo laakiin hadii inta aan soo sheegay aad dhaqan gelisid maskaxdaada hore u soconaysaa okay wax qoraalan fiirinaa adaan badan okay ka hari karin negative-ka maxaa sameey negative-ka qofkan ka hari karin waxa ku bedelaysaa positive erayada hadda aan ku soo qori doono waxaan ka soo bixiyay islamic maaragtay kuwa website ah oo ka hadlaan maaragtay psychology and islam mindset and islam marka kaasan ka soo select gareeyay waa list ilaa waxa ka qoray listigaas waxa uga bilaabana 1 ilaa 25 ilaa 25 kaas oo meeshan soo gelina hadii markasta aad tiraahdid oona ilaahayna baridid oo tawakkul aad dhahdid markastana kelmadda ilaahay la hawla wala quwwata illa billah number 1 ayada ah wax oo maaragtay negative ka biiyo negative ka waxa nusqaamiyo oo habiga nafsada farxadeeda ku geliyo oo hor ku wada kelimadaas inaan ku soo celcelisid la hawla wala quwwata illa billah iyo listigan aan ku soo diri doono safiya okay maskaxda baayo qalin lagu sameeyo ee xasuus ka tago soo laga soo celin kara xasuuska negative ka biiyo iyo trauma because anagoo dhan waxa aaminsana inta ku dhalatay xitaa waalidkood markay arkaan oo frustrated noqdeen waalidkii oo settle aan ahayn haday arkaan taas laftigeeda xataa trauma ah trauma-kaas wuxuu nagu ridaa hilmaam wuxuu nagu ridaa maaragtay in caajis lazinimo wax walbana waxay ka imaadaan mind-ka ma ah body-ga mind-ka marka wixii ku soo noqon laakiin mindset-kan triggies wuxuu yahay hadii wixii aad baratid in maskaxdaada aad dib u soo celin kartid oo adigana news ugu fiican uu yahay adiga powerkeeda gacanta ku haysid marka xasuustaas oo dhan way soo noqonaysaa hadii diintana aad kula qabatid oo markastana kalimaadka ilaahay afkaaga ku qabsatid oo ma aragtay xumaantana aad ka bixisid wanaag aad gelisid Ali Bash I think waa kaaga jawaabay hadii mid hore u soo qortay ay tahayna insha Allah berri 7 soo gal waqtiga UK waxaan isku dayaa insha Allah in aan su'aalaha iyo jawaabaha aan ka jawaabo
wixii oo su'aal iyo jawaab ah hadduu ilaahay idmo su'aal iyo jawaab keliyaan usoo galaya cashar uma soo galayay wax kale announcement kale in ogeysiin aan idiin sheego waxaan rabaa inaan soo casumo dad kale oo ayagana maasha allah oo expert ah oo aniga maaragta aan wax la soo bartay dad oo ka hadli doono topic aan soo diyaariyo topiga waalidiinta oo kale ilmaha technology-ga ilmaha ee waxyaalaha dhibka u gaarsiiyo waalidiinta qaabka maarkino waxyaalaha aan saxno iyo waxyaalaha naga qaldamo aniga xataa way ku jirtaa nafsadeyda waa soo casumi doonaa next week adi waqtigaa u raadinaa hadduu ilaaha idmo waxaan ogaaday in Facebook xataa la samayn karo broadcast for 2 people qofka kale iyo aniga waxaa kaloo idin sheegaa haddii walaalaha kalena oo dib kasoo galay waa mahadsantihiin okay walaasha su'aal iga jawaab okay ato soo qor maxamuud cabdi okay walaal aniga ma weydiinaysaa magacaa okay safiya la idhahaa safiya dib u soo celinayna qof su'aashiisa ka tagay intaana ka bixin adikoo mahadsan qolka markasta wuxuu soo maray ka waran okay qofka markasta uu gocdo wuxuu soo maray yes maxaa ku sameeyaa waxaa ku sameynaysaa maanta tan aan kuu sheegay oo self love kaas nafsadaada waxaad tiraahdaa nafsadeydii raaliga ahaa waan ku aqbalay wixii aan kugu dhacay nafsadaada inaa healing ku samaysid waay aad tiraahdid wixii kugu dhacay wixii xumaana wixii dhib ah dhib ma leh maanta banaanka ka jooga xumaantii kuma jiri ama dhibkii oo aan ku jiri kuma jiri marka nafsadaada inaa self talk samaysid waay dadku way ka xishooda wuxuu ku leeyahay self talk maxaa u sameeyaa inaa nafsadeeda la hadlo waa la hadashaa nafsadaada markasta waxaa u la hadashaa wixii xunba waa kula hadashaa waxaad tiraahdaa aniga stupid ah aniga yani qof meel gaaraa miihi aniga kan miihi aniga markasta kelmadaas waa ku dhawaaqdaa soo kelmadii sidii wanaageeda haddaa oo ku dhawaaqid oo markasta maskaxdaada kusoo celcelisid oo aad tiraahdid way qaadanaysaa nafsadaada way accept garanaysaa marka acceptan inaad samaysid oo nafsadaada aad ku raaligelisid aad ku qaadatid waxeeda marka walaal waa mahadsantihiin I think يعني آمين وما سنت محمد حسن أذيع مدن مركب وحي السؤال صحيح أوكي بلان أحمد صاحب كنيجاتيف كأما حاكو سمين دونا أو كاري دونين كوهاريكين أوكي طبعا هو very sensitive يا دا عادة إذن كل هاد لا هذا yes صاحب كحن noloshaada aad wax uga dhibaa horumarkeeda xiriirka waliba adiga iyo Allah subhanahu wa ta'ala because markasta waxa u qaadaysaa uqdad saaxiibkiya kala ah marka saaxiibka haduu yahay midka aad nolosha isla wadaagteen oo ilaahay nolosha isku kingeliyay ama ilmo aad soo dhasheen ama adiga ma aragtay oo aad tahay qofkii negative ka ah oo ninkaagan uu negative ka ahayn waxa sameynaysaa adiga inaad tustid waa role model oo aad iska ilaalisid wixii negative ka ah qofkaas waxa u noqonaysaa muraayad scientist ayagana waxay dhahaan waxa la dhaho mirror neuron muraayad hadda muraayadan hadda aanu isku fiiri aniga is arko haddii aniga ila labadii qof hal qof ah for example negative ka u badan in uu adduunka dhan uu arko wax xun in markasta uu complain in markasta wixii aad sameeysid uu ku dhaw meel ma gaaraysid wax ma qabsan kartid qofkaas saas ku dhahay hala yaabin asaga insecurity ah gudihiisii ma aragtay uu conflict ku sameeyay asaga dagaal oo isla dagaalsan asaga isku dhibaataysan marka waxa sameeysaa adiga qof wanaagsan noqo negative ka iska ilaali hadii uu qofkaas aad dareentid oo negative kiisu aad kugu badan oo damage ku siinayo waxa bedeshaa markii uu qofkaas baro waqtiyada uu negative ka hadalada u dhaho isku day inaad naftaada ka bixisid ama qol kale ka gal ama meel kale ka gal وانا ما حسنت أحب إني أكون أنفعلي لكن أنت كلا بريك هذا دون إن شاء الله مصلح سؤال هذا أركا أنت كلا دمون نكون كري ولا السؤال يان ربا إنا كويدي هدي أن مو فاهمين سؤال يا ويجي جاوبت أنت أوكي فكر كبدن أو عاد كهل كو آمنيسيد وحا آذن حلين ama meel fiican oo iska qaaday adoo meesha joogo
position camal sare adina dadaal badan ma sameynaysid. okay waxaa u qaatay in markasta aad ka fikiraysid Moha Ali inaad markasta ka waxa dhaqaaqaya screenka raalli hada in aad ka fikiraysid oo inaad ku haminaysid wax aadan helin ma xuma waa ku hamin kartaa wax aadan helin laakiin in aad markin oo dadaalkeedin aad muujisid waa oo iska qaada adoo meesha joogo positionka camal adina dadaal badan ma sameynaysid. okay maya taas lama rabo haddii taas u fahmo waa iga raali noqo qaabka u fahmo haddii tahay screenkan aad buu u socsoconayaa marka aada u mahadsantihiin. I think inaan berri su-aalaha badankooda aan ka jawaabi doono because cashar ma sameynayay waxaana kasoo geli doonaa laptopka si aan dhanka maaragtay oo qoraalka iyo dhanka kale uu laba meel ii kala noqdo hadduu ilaaha idmo. aanka adag loo qaadan karaa mar walba waxaa rabaa inaan wax dhaho. okay go-aanka aada uga hadli doonaa muhiim waaye haddii intaan healinkeeda aad soo dhistid go-aanka decision makingka waa ka hadli doonaa waa keeni doonaa asagoo oo dhan muxuu u fiican yahay ka hadli doonaa decision makingka waqtigeedu u fiican yahay waxyaalahaas oo dhan intee maskaxdeena activate noqoto ileen maxaa meesha sida hadda subconsciouska waxaa ka hadli doonaa prefrontal cortex ama neocortex loo yaqaana sidii exerciseka jirkaaga exerciseka suu ugu baahan yahay oo kale in maaragtay go-aankaadana saas oo kale ugu baahan tahay. dadka qaara waxay isleeyihin go-aan haddaa gaarto oo haddana ku dhacdo niyadda iska jabaan oo iska fariistaa haddana hal mar kale ma qaadaan fadhiga kama kacaan laakiin go-aankaaga inaad markasta go-aan qaadid sida jirkaaga exerciseka ugu baahan yahay oo maskaxda maaragtay oo go-aankaagana in uu bato u fiican yahay because markasta kuma dhicis markastoo aad dhacdidna ma ahan inaad maaragtay wixii ku dhacday laakiin waa inaad lesson cashar ahaan aad ka baranaysid. barnaamijka waa ku anfaca maadaama maskaxda ku saabsan yahay quluubta allah inoo hagaajiyo aamiin aamiin. waa mahadsantihiin walaalayaal kulligiin insha allah anaan idin soo sheegi doono waqtiga ma aragtay oo berri waqtiga 7 waqtigaasaan soo geli doonaa hadduu ilaahay idmo. جزاكم الله خير دمانتين waxaan idinkaga tagayaa khayr iskana ka cafiya haddii eray ama qaldan ama su'aalaha aad soo qorteen aan qaarkood aan awoodin aan akhrinin sababtoo screenka dhaqdhaqaaqaya ha ii maleynin inaan akhrin waayay marka aad u mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.